الله الرحمن الرحيم ما أنت هريده هله الحمد لله رب العالمين وها الحمد لله رب العالمين ما أنت كوي تبن سنة هريه معجزتي سمفل عبد المالك شيخ موسى علدون oo maxbuus ah ku qabsatay xabsiga maxbuuskii 12 sano iska xirnaa sidoo kalena cid u gurmata weyday iyo Culdoon oo arin la yaab la halkaasi kala kulmay waxay ahaayeen daqiiqada shacabka Soomaaliyeed farxad iyo murugo ku noqotay markii Culdoon oo maxbuus si sharci darro ah ugu xiran maamulka Muuse Biixi uu furdaamiyay sidoo kalena uu xabsiga ka saaray maxbuus 12 sano isaga xirnaa xabsiga dhamaanta saaxiibayaal meel walba oo dunida daclada ka joogtaan aynu si niyad leh ugu duceyno walaalkeen Culdoon oo si dulmi sharci darro ah ugu xiran Muuse Biixi Cabdi waxaana loo xiray maxaad u difaacaysaa sidoo kalena uga hortimid qowmuluudka iskuulka abaarso iyo barwaaqo waxaana Culdoon xilligan sii maraya 2 sanadood oo xabsi ah dhamaantiin waxaan si naxariis leh kaga codsanay inaan muuqaalkan la gareysaan si bulshooyinka Soomaaliyeed uu gaaro ayna ugu duceeyaan walaalkeen Culdoon YouTube-kana subscribe saarta gambalelkana furta ku mahadsanidin waxba yaana war badan in ku daalan saaxiibayaal tani waa qisada naadirka ah waa Samafale Cabdi Maalik Muuse Culdoon oo xabsiga ka sii ah wali samafalnimadiisina ka baray maxaabiista qayb quraanka ayuu barayaa kuwa kalena waxa uu ka furdaaminaya xabsiga gaar ahaan kuwa waqtiyada dhaadheer xabsiyada ku xiran hore waxa la xasuustaa in Culdoon uu furdaamiyay maxbuus 12 sanadood xabsiga ku xirnaa kaas oo ahaa nin Oromo ah oo nin dilay sidoo kalena cid lacagtii ka bixisay weyday waxaana Culdoon xabsiga isagoo ku jira oo ninkaasi magtii ka shubay bulshooyinka Soomaaliyeed inta uu soo bandhigay ayuu furdaamiyay maantayna waa ninkan maskiinka ah ee sida sharci darrada ugu xiran Muuse Biixi 12 sanadood ayuu furdaaminaya waana arinta halista leh ee maanta ka taagan magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland shacabka Somaliland waxay leeyihiin ilaahu noo qaban dulmiga Muuse Biixi oo kula kacayo Culdoon iyo maxaabiista waqtiyada dhaadheer xabsiyada ku xiran hadaba saaxiibayaal waxba yaana wardan ku daalana daawasho wacan maxbuuska furdaamiyay Cabdi Maalik Muuse Culdoon oo maxbuusa ayaa wuxuu furdaamiyay maxbuuskan oo 12 sano ku xidhnaa alxamdulillaah bismillaahi raxmaani raxiim maantaan huriyada hele alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxa alxamdulillaahi rabbil aalamiin maantaan 12 sano xiraye jeelka Hargeysa weyne alxamdulillaahi rabbil aalamiin maanta huriyay imika waan farxsanay alxamdulillaahi rabbil aalamiin Cabdi Maalik Culdoon ilaahi khayr yasiyo isaga uu dadaale in badan u dadaale alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxaan dardaaranayaa isaga ilaahi khayr yasiyo isaga khayr ilaahi siiyo waxa weeye waxaan rajeynayaa isaga ilaahi gargaaro dhibaatada ku jirto ilaahi ka saaro maanta ay taariikhdu tahay bishii 8 2022 waxaa dib xoriyadiisa u helay Axmed Cabdilaahi Cali oo muddo 12 sano oo muddo xabsiyeeda ku jiray xabsiga magaalada Hargeysa Axmed hawshiisa siideentiisa waxa qaybta ugu weyn ka qaatay walaalkeen Samafale Cabdi Maalik Sheekh Muuse Culdoon oo maantana isagoo xabsiga ku jira Cabdi Maalik intii aan la xidhin ayuu soo bilaabay hawsha maxbuuskan waxa uu la xaajooday oo arintiisa kala hadli jiray ehelkii uu xidhnaa Axmed ee magta ku lahaa ugu dambeyn Cabdi Maalik waa la qabtay isagaan hawshii dhameystirin markii hawshii Cabdi Maalik xarigiisii xukunkiisii dhacayna wuxuu noo wakiishay aniga oo Cabdiqaadir Ismaan Dibad hawshiina aniga halka ka sii bilaabay ilaahay mahadi ilaahay uu nagu guuleeyay hawshaas oo maanta Axmed waa kan maanta dibadda jooga waxay naga qaateen guud ahaan waxa ku baxay $12,500 dollar siideynta iyo furdaaminta walaalkeen Axmed $10,000 waxa qaatay qoyskii iyo aabihii magta ku lahaa walaalkeen Axmed 1,500 waxay noqotay qarashaadkii $7,000 waxa keenay walaalaheena kale Oromada ay ku sugan Hargeysa oo ingala joogo Khalid iyo walaalada kale ayaa 7,000 soo ururiyay 4,500 waxa soo amaahday Cabdi Maalik Sheekh Muuse Culdoon oo ku dhameystiray si heshiiskaas iyo hawshaasi ay dhamaato walaalkeena uu xabsiga uga soo baxo ilaahay mahadi ilaahay waa nagu guuleeyay oo maanta waa ka Axmed maanta dibadda jooga alxamdulillaahi rabbil aalamiin marka sheekada maanta halkan taala waxa weeye maxbuuska furdaamiyay Cabdi Maalik Muuse Culdoon oo maxbuusa ayaa wuxuu furdaamiyay maxbuuskan oo 12 sano ku xidhnaa labadii si xariga ugu dambeeyay Cabdi Maalik xabsiga ayuu ugu tagay kan imika ku jiray kii ku horeeyayba
markaa runtii waa sheeko cajiiba in shaksi maxbuusa oo isagu baan xorriyad haysan uu maanta ka fekero una shaqeeyo una dadaalo siduu walaalkiisan kale ee ka muddada badan leh uu xorriyaddiisa u heli lahaa. waxaa hore u jirtay iyaduna in cabdimaalig maalintii shaqaaqadu ay ka dhacday xabsiga magaalada Hargeysa in cabdimaalig Muuse Coldoon uu ka mid ahaa ama uu kooba ka ahaa dadkii hawshii xabsiga ka dhacday soo gunaanaday kana qayb qaatay inay rabshadaasi halkeeda ku ekaato. hawsha iyo dejinta uu cabdimaalig maalinta xabsiga ka qaatay waxaa uga marakacay oo uga mahadnaqay madaxdii iyo mas-uuliyiintii xabsiga maalintaa tegey oo goobjoog ka ahaa siduu hawsha cabdimaalig odatinimada iyo waxaan ku wanaagga uu uga shaqeeyey isagoo doonayay inaan meeshaasi dhibaato kale ka sii dhicin. ciidankuna runtii maalinta aad iyo aad bay ugu mahadnaqeen maadaama hawl iyagu ku adkaan lahayd uu isagu ka dhameeyey oo ka dejiyey. marka runtii taasina waxay ahayd tallaabo hore oo cabdimaalig intuu xabsiga ku jiray qabtay waxaanayna tusinaysaa inaanu cabdimaalig ahayn shaksi dabadda uun ku shaqeeya ee gudaha iyo xabsiga hadduu ku jiraba samafalkii iyo wanaaggii looga bartay sii wadaya. sida uu walaalkay cabdiqaadir uu sheegay arrinka aan maanta halkan u joogno walaalkeena Axmed Cabdullaahi Cali oo muddo intaa walaalkeena cabdiqaadir uu sheegay oo jeelka Hargeysa uu ku xidhnaa ilaa maanta oo bishii 8aad 24keedii uu jeelka ka soo baxay. marka sida uu walaalkeena cabdiqaadir uu sheegay marka laba tiim baa arrinkan uu ka qayb qaatay. tiimka ugu horeeyay runtii arrinkan asaaskeeda soo bilaabay oo cabdiqaadir cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa arrinkan bilowgii ka hor intaana la xidhinba uu soo bilaabay inuu ilaahay dartii magta uu lagu haysto inuu ilaahay dartii isagu uu kaga bixiyo. nasiib daro laakiin isagoon arrinkii bilaabay aana dhammaystirin ayuu de isaga la xidhay. kabacdiina annagoo dee odaygan jeelka aan ku booqanayna aan aragnay ayaa arrinkan marka maadaama uu isagu xidhan yahayna noo sheegay. kadibna annaguna oo tiimkii xagga Etoobiyaanka oo Oromada siiba Oromada oon anigu aan ka mid ahay hawshii halkaasoo aanan kala bilownay. marka runtii sida walaalkeen cabdiqaadir uu sheegay waxa processka kala duwan ayaanu soo maray muddadii aan hawshan aan ku jirnay. marka annagu as tiimkaygu waxaanu soo ururinay lacag gaadhayso $7,000. cabdiqaadirna wuxuu maxaan ku idhahdaa meel ka soo amaahday lacag gaadhayso cabdimaalig Muuse Coldoon 4,500 ayuu soo amaahday. marka totalkii maxaa qarashkii nagaga baxay meesha waxa weeyaan 11,000 iyo badh ayay ahayd. marka annagu tiimkeenu waxaanu aan keenay 7,000. saas ayay arrinkaas maanta inoogu soo gabagaboobay. runtii aad baan ugu faraxsannahay. runtii dee cabdimaalig waa sida dhammaan dadka Soomaalida iyo dadka kale bay garanayaan waa nin samafala oo maxaan ku idhahdaa dadka masaakiinta dhibaataysan hadday kuwa jeelasha ku jira hadday kuwa bannaanka ku dhibaataysan yihiinba waa qofka caawinayo marka wanaagga ka qayb qaadanaya ayuu ahaa. marka odaygan keliya maaha dad Oromo hore oo muddo 20 sano sida isigii oo kale oo xidhnaa oo magtii lagu lahaa uu ka bixiyo oo soo daayay ilaa dhowr 4 qof ayaa jirtay. marka kan waxaan filayaa inuu yahay qofkii shanaad. marka runtii annagu si gaar ah aad baan ugu mahadnaqaynaa dadaalkii uu isagu sameeyey. isagana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay maxaan ku idhahdaa u fududeeyo jeelkii uu ku jiro ilaahay ka soo saaro. runtii aad ayaan ugu faraxsannahay.